bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhowaada waxaanu idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xiisada u dhexeysa beelaha gudabiirsi iyo sidoo kale ciise oo cirkaas kusii sharartay mar kale kadib go-aan adag oo kasoo baxay odayaasha iyo waxgaradka beelaha ciise sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa taliska guud ee ciidanka milatariga Somaliland oo amar culus duldhigay dhinacyada markaasi ku dagaalamaya ee deegaano ka tirsan gobolada Awdal iyo sidoo kale Salal sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa golaha guurtida Somaliland oo markaasi eedan culus u jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland kuna eedeeyay in markaasi uu qayb markaasi ka yahay colaadda ka taagan gobolada Awdal iyo Salal isla markaana uu diiday in halkaasi guddiga ay gaaraan qodobadaasi kuwa kale faahfaahintooda ayaanu idiin soo gudbin doonaa balse marka koowaad soo dhow muuqaalkan la gare sidoo kalena sii sheer garaa si dad badan xogtan ay u gaarto aynu ku bilownay waxaa cirkaas ku sii sharartay xiisada u dhaxayso beelaha ciise iyo sidoo kale samaroon kadib hadallo qalafsan oo labada dhinac ka soo kala baxay isla markaana dabka ku sii shidaya colaadda odayaal u hadlay beesha ciise ayaa waxaa markaasi ay si cad u sheegeen in haba yaraatee wanwaanta iyo nabadgelyada ay doonayso xukuumadda Somaliland in aysan diyaar u ahayn isla markaana ay tahay cadaalad markaasi dhinac ka raran waxaana markaasi ku baaqeen in ay hub ka qaataan dhammaan dadka ka soo jeedo beesha ciise iyagoona sheegay in ay dagaal markaasi diyaar u yihiin ciidamada milatarigana u diray digniin culus oo ah in aysan markaa u soo dhowaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiya beeleedka beesha Isaaqa dhinaca kale waxaa diyaar garow iyo markaasi guluf colaadeed ku jira beesha Samaroon oo iyaguna markaasi aaminsan in ay ku soo duuleen beesha ciise isla markaana dagaal adag ay kala hortagayaan xaaladda guud ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa muddooyinkii u dambeeyay ahayd mid markaasi kacsan kadib markii dhinacyada ay bilaabeen weeraro markaasi midba midka kale uu doonayo inuu kaga riixo deegaanada ay ku sugnaayeen kadib markii ay daba dheeraatay colaadda ka taagan gobolada Awdal iyo Salal xukuumadda Somaliland ayaa qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in halkaasi loo diray ciidamo militari ah oo markaasi la kala dhex dhigay beelaha halkaasi ku dagaalamayay waxaana ciidamada markaasi amar lagu siiyay in ay gacanta ku dhigaan cid kasta oo ay arkaan oo markaasi hub sidata isla markaana aan ka mid ahayn ciidamada Somaliland taliyaha guud ee ciidamada Somaliland oo haatan ku sugan galbeedka Somaliland ayaa waxa uu markaasi sheegay in aysan aqbali karin isla markaana aysan arki karin qori aan ahayn qoriga markaasi Somaliland hadalkaas oo si weyn uga careysiyay beesha ciise ayaa waxa haatan muuqato in ciidamada milatariga ay qaadayaan tallaabooyin dhowra deegaanka madaxdaadley oo markaasi ka tirsan gobolka Awdal ayaa laga soo sheegayaa xiisad kadib markii halkaasi ay weerar ku ekeeyeen ciidamada milatariga Somaliland kuwaasoo markaasi doonayay in ay hubka dhigis ku sameeyaan maleeshiyad halkaasi ku sugnaa oo ka tirsan beesha ciise madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo laftirkiisa ka soo jeedo gobolka Awdal isla markaana muddooyinkii u dambeeyay halkaasi ku sugnaa kuna jiray xal u helista colaadda halkaasi ka taagan ayaa haatan lagu eedeeyay in isaga laftirkiisa uu qayb ka yahay colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay golaha guurtida Somaliland ayaa si adag u dhaleeceeyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyagoona sheegay in guddigii dhexdhexaadinta halkaasi uu markaasi u diiday in ay tagaan isla markaana uu is hortaagay sidoo kalena ilaa hadda wax natiijo uusan ka gaarin colaadda markaasi ka taagan gobolada Awdal iyo sidoo kale Salal laadan arinta Seylac iyo Awdal halka la isku hayo runtii tabashadaasi in badan bay jiitamaysay oo reer Awdal wax badan bay ay tabasho ay qabeen waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waashadee horta mar hadii dood ay tahay waa la kala saaraya xukuumadda isku jiri maysay meel walba waa la taabanaya madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi cabashooyinka reer Awdal tabanayaan xaqiiqo soo gaadha oo daba tagta 25 buu guddi qaran u saaray madaxweynuhu oo uu ugu talagalay intay boorama tagta waxa reer Awdal tabanayaan ay Somaliland ka tabanayaan inay gunta gaadhaan dabeetana tabashada wixii ay noqoto ay xukuumadda uu madaxweynuhu hogaamiyay ku soo celiyaan si looga go'aan qaato arrintaasi waxay soo taagay oo mas'uuliyadda qaatay madaxweyne ku-xigeenka guddidaasi ilaa imika shaqadii may gelin sabab madaxweyne ku-xigeenkani ayaana hawsha isagu aniga horta galaya hada suuqeena ilaa December 20 ilaa maanta
madaxweyne ku-xigeenka warkana soo celiyay guddigii uu soo taagay waxaan u soo jeedinaynaa arrintaasi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka uma sinee tabashada reer awdal wixii lagu daweyn lahaa guddigii loo diray madaxweyne ka hor madaxweyne ku-xigeen anigu taasi waa qodobka labaad ee soo raaca waxa weeye arrinta shaqaaqada ka dhacday halkaa sibaa la isu eedeeyaa magac iyo muuqaalba waa lagu yeeshaa waxaynu ognahay madaxweyne ku-xigeenku arrintii galbeedka bariga ka dhacday dee maamuus madaxweynuu lahaayo waa laga shaqaynayo iyadoo bisil baa la tegay oo magac iyo muuqaal buu kala yimi arrinta halkaa taalla kii tegi lahaa maaha waa xaqiiqa baan idiin sheegay kow ninka lagu eedayn lahaa ama wasaaradda arrimaha gudaha ha noqoto ama wasaarad gaashaandhig ha noqoto ama wasaaradaha kale ha noqotee cidda eedda madaxa loo saari lahaa dee kuwaasay ahayd kuwiina isagaa madaxa dhigay oo guddiyadii guurtida la saaray iyo guddidii nabadgelyada qaban lahaydba madaxweyne ku-xigeenkiibaa isaguna madaxa ku qaato boorama fadhiistay taana waxaan u soo jeedin lahaa adliis hadduu hawshaa qaatay waxay ahayd ilaa saylac inuu isdul taago oo goob walba iyo geed walba inuu madaxweyne ku-xigeenku fadhiisto kii boorama fadhiyi lahaa maaha taasaan ka odhanaya waxaan soo jeedinayaa xaqiiq markaynu ka hadalno markaynu wax daweyno inaynu halkeeda ugu tagnaaye arrimaha waxaynu u baahannahay inaynu sidaynu ugu kala dambayno haddii kale way xumaanaysaa intaa u dhaafi maayo qodobka labaad een doonaya inaan ka hadlaa waxa weeye arrinta sanaag meel bay soo joogto la taagay haddii howlaha go'aanada la gaadho waxay u baahan yihiin horta in laga daba tago laba arrin baan idiin sheegayaayoo dalka waxaa ka dhacay arrintii ceelafoyn way dhacday go'aanaynu ka gaadhnay go'aanadaasi mar badan may fulin maanta fulitaankeedu wuu socdaa 11 bisha shanaad ama 4 bisha shanaad meelaha ayay ku mudaysantahay in magweyntii la kala qaato golahana inay cidi ka tagto ay goobjoog u noqotaa waa waajib oo shirgudoonka wataa waan ku wargeleynaa arrintii cali saayid ee golaheenuna galay arrintaasina way soo gabagowdo 54 kuna ugu dambeeyay 2 wiil ka hor baa ayaa labadii reer kala qaateen iyana way dhamaatay waxay ku dhamaatayna waxa weeyaan guddi fulin oo daba socoto oo maalin walba go'aankay gaadhay tiraa maxay inoo haray ayaa hiisay waxaan soo jeedinayaa oo xaq aynu u leenahay arrinta shidan go'aanaynu ka gaadhno guddiyaa galay fulin baa xukuumadda laga rabaa inana waxaa laynaga rabaa intaynu xukuumadda daba soconno inaynu intaynu istaagno ilaa qodobadii siday u kala horreeyeen baa loo kala fulinayaa reer walba wixii lagu xukumay baa laga rabaa dee loo fadhiisto ciddii keeni weydaa dee xukuumadda tallaabaha ka qaad waa inaynu si toosa xukuumaddu maaha inay maalin walba intay 2 wasiir u dirto iyagu kaambeyn ka galaano dee wasiirada la diraa imika kaambeyn uma wasiiralo magaca u baa ka soo korodhe iyo wasiir buuxa la siiye intaynu kaambeynka ka dayno waxaynu u baahannahay inay xukuumadduna fulinta noqoto fuliso wixii la qaban waayo goluhuna wixii uu xukumay cid walba wixii uu ku xukumay daba fadhiisto tiraa war reer walba wixii lagugu xukumay kii keeni waayo dee tallaabo laga qaado oo aanay bahashu isku jirin mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa arrintaa inaynu xoojinno madaxweyne ku-xigeenkana waxaan soo jeedinayaa inaynu guddi golaha loo saaro bal arrimaha inaynu ka daba tagno inaynu idhaahno kuwii wax loo keeni lahaa baa tiina kuwii wax noo keeni lahaa ma tiide bal gurigii madaxtooyada qaranka dee ku soo noqdo shaqada sidii loogu kala fardho dhuudhubnaha loo qabto wasalaam